ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ተሻጋሪ ምናብ ያስፈልጋል። በየጊዜው አዳዲስ ስራ፣ አዳዲስ ጉዞ፣ አዳዲስ ምልከታና kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka nuxurka dhacdooyinka oo inta badan aan idinku soo aruurino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo waliba dunida. waliba barnaamijkan hadda ugu dambeeya waxaan ku dul istaagaynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta ka dhacay qaybo badan oo kamid ah dunida, waliba qaasatan arrimaha dadka reer Falastiin oo ay haysato dhibaato aad u xoogan. hase ahaatee qodobka ugu horeeya aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in si caqli ah iyo waliba diblomaasiyadeed lagu xalliyo xiisadda u dhaxaysa labada dal iyada oo aan laga qayb gelin ayuu yiri dhinacyada dibadda, taas oo uu ula jeedo wadamada galbeedka iyo wadamada Carabta sida uu hadalka laga fahmi karo. isagoo ka hadlaya khudbad uu ka jeediyay shirka golaha dhexe ee xisbiga talada haya ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa ay Soomaaliya ay uga dhinteen boqolaal ciidan ah si loo gaaro oo Soomaalidu ay u gaarto midnimo nabad ka dhalata Soomaaliya, isla markaasna aysan dani ugu jirin colaad ka dhex qaraxda labada dal. haddaba dad badani waxa ay isweydiinayaan Abiy Ahmed Cali ma waxa uu doonayaa in uu dhul ku qaato ciidamada ay shabaab ku laayeen ee soo galay gudaha Soomaaliya iyadoo cidina aysan ka codsanin inay Soomaaliya yimaadaan? waa su'aal ay dad badan isweydiinayaan. hase ahaatee waxaa filayaa waqtiga iyo Soomaalida ayaa ka jawaabi doonta arrintaasi iyo waliba damaca guracan ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. qodobkaas haddii aan intaasi aan kaga tagno aan u gudubno qodobada kale ee inoogu jira barnaamijka. Israa'iil waxa ay qasa ay ku qaaday weeraradii ugu darnaa toddobaadkii ugu dambeeyay iyadoo oo duqeyntii 24kii saac ee ugu dambeysay ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil lagu dilay 183 Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen 377 sida ay sheegtay warbaahinta Al Jazeera. tirada guud ee dhimashada ee dadka Falastiiniyiinta ayaa gaaraysa 26,000 iyo waliba 83 qof, halka sidoo kale dhaawaca oo inta uu ka badan yahay oo uu gaarayo 64,487 oo caruur iyo haween u badan. waa hagaag intaasina waxay ahayd xogihii ugu dambeeyay ee dhinaca dhimashada iyo dhaawaca ee dadka reer Falastiin ee dhibaatadu ay haysato oo duulaanka gardarrada ah ay ku hayso dawladda Yuhuudda. imankana waxaan eegaynaa go'aankii la wada sugayay ee dhinaca maxkamadda cadaaladda adduunka oo Koonfur Afrika ama dawladda Koonfur Afrika ay maxkamadda u gudbisay. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay waxa aan sameynay waxay ahaayeen wax lagama maarmaan u ah ilaalinta nolosha kumanaanka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan Gaza. amarada maxkamadda caalamiga ah ma guuleysan karaan xabad joojin la'aan. waxa aan jecelnahay in maxkamaddu ay go'aan ka soo saarto xaaladda Gaza. sidaas waxaa yiri wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika xilli ay maxkamadda cadaaladda adduunka Israa'iil ay ku amartay inay ilaaliyaan dadka reer Falastiin, balse go'aankii ay u gudbisay Koonfur Afrika ee ahaa xasuuqa ay Israa'iil u geysatay dadka reer Falastiin aysan waxba ka soo qaadin. go'aanka maxkamadda ka soo baxay ayaan xitaa lagu sheegin in loo baahan yahay in Israa'iil ay joojiso duulaanka ay ku qaaday magaalada Gaza, iska badaa in lagu sheego in Israa'iil ay xasuuq geysatay. qodobkaana intaas ayaan kaga gudbaynaa. siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Israa'iil ayaa bilaabay in ay saxiixaan codsi ay ku dalbanayaan inuu iscasilo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu. sida uu qorayo wargeyska Yadood Ahranood waxa uu sheegay in la aqoonsaday in ay warqadaha ay saxiixaan madaxdii hore ee ciidanka hay'adaha sirdoonka ee Mossad iyo waliba sirdoonka gudaha, kuwaasi oo ku guuleystay abaalmarin kala duwan oo ah abaalmarinta Nobelka. arrintan ayaa waxaa loo arkaa inay sare u qaadayso cadaadiska gudaha ka haysta ra'iisul wasaaraha xilka haya ee Yuhuudda Netanyahu.
weer loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qaaday mid ka mid ah goobaha gaaska laga soo saaro ee gudaha dalka Ciraaq oo sababay in si kumeel gaar ah loo hakiyo wax soo saarka xarunta ku taala gobolka Kurdistan ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq iyadoo guud ahaan gobolka ay ka maqan tahay korontada sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. weerarkan ayaa waxyeello gaarsiiyay haamaha kaydka gaaska dareeraha ah balse ma jirto burbur weyn oo gaaray sida ay sheegtay shirkadda goobahani gacanta ku haysa oo ah shirkad laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan walow ay soo baxayaan wararkii ugu horeeyay ee maxalli ah oo sheegaya in kooxda Xisbullah ee Ciraaq ay weerarkan qaaday. isbahaysiga NATO ayaa isagana maanta waxa uu bilaabay dhoolatuskii ugu weynaa tan iyo dagaalkii qaboobaa ee adduunka iyadoo ay ka qayb galayaan ilaa iyo 90,000 oo askari oo howlaha kala duwan ee howlgallada qabta oo ka socda 31 wadan oo isbahaysigan uu ka kooban yahay halka ay sidoo kale ay ka soo muuqanayso Sweden. inta uu socdo dhoolatuska waxa ay soo bandhigaysaa NATO hubkooda kala duwan qalabka dagaalka oo ay ku jiraan boqolaal diyaaradaha dagaalka ah in ka badan 50 maraakiibta dagaalka ah iyo 150 taangi iyo gaadiidka gaashaamo noocyadiisa kala duwan iyo waliba hub kale oo casri ah oo ay ku soo bandhigayaan dhoolatuska. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii dhacdooyinka dunida oo inta badan maanta aan ku eegaynay waxyaabihii ugu dambeeyay ama ku dul istaagnay. fadlan daawade barnaamijkan inta badan waxaa ka daawataa channelka waayaha dunida. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, barnaamijka noo like garee, facebookana noo follow garee. mahadsanid.